Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha halkaa naga daawanaysaan waa dalka miidiya maanta waxaan kusoo qaadan doonaa ciyaaraha suuqa kala iibsiga kubadda koleyga oo lagu jiro qeybtiisa playoffska iyo kubadda cagta kulamada berri la ciyaari doono iyo warar kale ugu dambeeyay ee suuqa iyo ciyaaraha mar kale kusoo dhawaada dalka miidiya aan ku bilownay kulamadii xal laga ciyaaray kubadda koleyga kooxda Denver Nuggets ayaa laga reebay semifinalka waxaana reebtay kooxda Minnesota Timberwolves oo badisay 4 kulan halka kooxda Denver Nuggets ay badisay 2 kulan oo ay ku ciyaartay gurigeeda xalna waxa lagu garaacay gurigeeda ayaa looga badiyay sidaas ayay ku hartay kooxda Denver Nuggets halka kooxda Minnesota Timberwolves ay u soo gudubtay semifinalkan waxayna la ciyaari doontaa kooxda San Antonio Spurs sidoo kale waxaa wada ciyaaray kooxaha kale ee wada ciyaaray aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah New York Knicks ayaa la ciyaartay kooxda Atlanta Hawks sidaasna waxaa kusoo baxday kooxda New York Knicks oo guushii ku gaartay 4-2 iyadana kusoo baxday kooxda Atlanta Hawks ayaa iyadana lagu reebay playoffska sidoo kale waxaa wada ciyaaray kooxda Boston Celtics oo la ciyaartay kooxda Philadelphia 76ers oo iyadana guushii gaartay kooxda Philadelphia 76ers kooxda Boston Celticsna laga badiyay kulamada aan soo qaadan kulamada caawada laga ciyaari doono kubadda koleyga NBA Mareykanka kale ee jira caawada kooxda Detroit Pistons oo la ciyaari doonta kooxda Orlando Magic haddii caawada ay badiso kooxda Detroit Pistons waxay idin soo gudbi doontaa wareegga xiga sidoo kale waxaa wada jira kulan u dhaxeeya LA Lakers oo la ciyaari doonta kooxda Houston Rockets haddii badiso kooxda LA Lakers idin way soo gudbi kartaa waxaa kale jira kulan kale oo u dhaxeeya kooxaha Cleveland Cavaliers oo la ciyaari doonta kooxda Toronto Raptors intaas ayaa ka gudbaynaa wararkii kubadda koleyga NBA da Mareykanka haddana aadno suuqa kala iibsiga iyo waxyaalaha laga qoray aan ku bilownay ciyaaryahanka kooxda Manchester United Kobbie Mainoo ayaa saxiixay qandaraas dheer oo 5 sano ah ciyaaryahankan oo muddadii ugu dambeysay qaab ciyaareed fiican soo bandhigay intii uu joogay tababaraha ku-meel gaarka Michael Carrick ayaa lagu abaalmariyay qandaraas dheer oo 5 sano ah sidoo kale waxaa kor loo qaaday mushaarkiisa oo la gaarsiiyay 150,000 oo pound isbuucii kooxda Everton ayaa xiiseynaysa weeraryahanka kooxda Chelsea Liam Delap si ay u soo qaataan xilli ciyaareedka soo socda sidoo kale kooxda Everton ayaa doonaysa ciyaaryahanka difaaca kaga ciyaara xulka Ingiriiska ee kooxda Manchester City John Stones oo xilli ciyaareedka markuu soo gabagaboway qandaraaskiisa ilaan doona iyo sidoo kale 28 jirka kooxda Arsenal difaaca kaga ciyaara ee Ben White si ay u soo qaataan sidoo kale Everton waxay rabtaa in ciyaaryahanka Jack Grealish oo amaah kula jooga ay rabto inay qaadato si joogto ah ula saxiixato anaadna kooxda Liverpool ciyaaryahankeeda Mohamed Salah ayaa la sheegay inuusan aadi doonin horyaalka Sacuudi Arabiya halka uu sii joogi doono qaaradda Yurub waxaa la sheegay inuu ku biiri doono kooxda Fenerbahce oo ka ciyaarta horyaalka Turkiga sidoo kale kooxda Manchester United ayaa doonaysa ciyaaryahanka difaaca bidix kaga ciyaara kooxda West Ham El Hadji Malik Diouf oo 22 jir ah si ay tartan ula geliso ciyaaryahanka Luke Shaw kooxda Juventus ayaa xiiseynaysa 33 jirka kooxda Liverpool goosha u qabta ee Alisson Becker si ay u soo qaataan xilli ciyaareedka soo socda Aston Villa ayaa doonaysa ciyaaryahanka qadka dhexe ee Asadino Onana oo ka ciyaaray horyaalka Serie A dalka Talyaaniga kaasoo u ciyaara kooxda Girona sidoo kale ciyaaryahanka xulka Ingiriiska difaaca ah ee ka ciyaaray horyaalka Turkiga kooxda Fenerbahce Archie Brown ayaa la sheegay in ay xiiseynayso kooxda Nottingham Forest sidoo kale ciyaaryahanka kooxda Manchester United 26 jirka Jadon Sancho ayaa la sheegay inay xiiseynayaan kooxaha horyaalka Talyaaniga sidoo kale kooxda Manchester United ayaa doonaysa si ay u soo saxiixato xilli ciyaareedka soo socda ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara kooxda AC Milan Rafael Leao si ay mid ay u soo qaataan halka kooxda AC Milan lagu wareegi doono
ciyaaryahanka 28 jirka Marcus Rashford ama ciyaaryahanka qadka dhexe ee Manuel Ugarte ama ciyaaryahanka kooxda weerarka ka ciyaara Joshua Zirkzee midkood si ay kooxda Manchester United ciyaar soo socdo haddii ay u soo gudubto kulanka maalinta hadda ay la ciyaar doonto kooxda Liverpool haddii ay ka badiso ay xaqiijiso inay u soo baxday Champions League ee rabto kooxda Manchester United inay is xoojiso sidoo kaleeto waxaan kusoo gabagabaynaynaa warar ayaa sheegaya in ciyaari tababaraha kooxda Manchester United Michael Carrick laga yaabo in si toos ah loogu wareejiyo kooxda Manchester United intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena ciyaaraha halka aad naga daawanayseen waxa uu ahaa dalka media haddii aad ka heshay barnaamijkeena ciyaaraha subscribe like share mahadsanidin intaan dib dambe kaga kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh